to Khalid Nia official video. Please subscribe, comment, share. You're welcome. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كسر دواد المقال كان الحسب. دعوة أنتنا المقال كان ما تقدر تقولين. وإحنا الله سبحانه وتعالى وبرينا دمان مدة مسلمين تعمل كسر جبتوا الله سبحانه وتعالى كبدباديو أن بكم ينقليو وحنوك الدنيا كفا في ماتا الله يقعنا كورونا فيروس. سوك لو إحنا الله وبرينا سبحانه وتعالى دمان مدة مسلمين تا أنتوا على لحنوك نهينو الله عافيو. I don't wanna fight this war. Oh no. قاضي القصيدة إنه ما تضحك بلوم يسعى سيرتان وحقوق النولاء قري ويل يهويدي ويل كابه وحاول انتي مدكهر حسياشي وحاول انتي قويسك مال الدنيا او آدرو لحانتي وبضان ويل كيهويدي وحيسكوها عيان تدقول يدير كيد iyagoo midba midka kale uu qabay jacayl iyo ixtiraam badan markasta wiilku hooyadii u tixgelin jiray sidoo kale aad ayuu jeclaa sidoo kale hooyadii iyada laftigeedu kamay dhigin uga waalid waana beer wax dhalay aad iyo aad buu jeclayd wiilkeeda waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah wiilkii oo xaafadda ka maqan ayaa waqti dambe waxa uu yimi xaafadii waxaa joogay aqalka amba kasii sugayay sidii caadada u ahayd hooyadii markii uu soo galay wiilkii xaafadii ayaa uu la kulmay hooyadii oo qolka fadhiga fadhiday ayuu ugu galay isagoo labada dhaban ka dhunkaday sidoo kale dhabteeda ku jiifsaday waxaanu weydiiyey hooyadii hooyo adduunka ma saaran yahay ama ma jira aadama buuxin kara booska hooyanimo run ahaantii su-aashaas waxay ahayd su-aalo ka yaabisay hooyadii maadaama wiilkeedu markasta ahaan jiray mid aan su-aalaha noocaas oo kale ah weydiinin hooyadii waxay ahayd gabadh uu alle subxaana wa tacaala ku manaystay caqli iyo garaad waxaanay ugu jawaabtay wiilkaygiiyow waa uu jiraa ruux buuxin karaa booska hooyanimo amba kaalinta hooyanimo hase yeeshee hooyadii intaa kuma ekaan inay keliya jawaabtii siiso ee waxa u raacisay waxase nasiib iyo ayaan la ruuxii hela wiilkii wuu la yaabay hooyadii isagoo hooyadii ku yidhi hooyo diin ahaan iyo garaasho ahaan aadamiba ma dhici karto in la buuxiyo booskii hooyanimo run ahaantii hooyadii waa ay dhoolla caddaysay waxaanay ugu jawaabtay wiilkaygiiyow diinta ayaan si fiican uga dharagsanayn iyo soo kale dhaqanka aadamaha ayaanad hoos u eegin waxay hooyadii u sii raacisay haatanna meel ayaan aadayaayay wiilkaygiio waa inoo kulan dambe amba waa inoo mar kale wiilkii wuxuu ugu jawaabay hooyo if iyo aakhiraba weliga ahaa cil mudan waan fahmay oo gartay hadalkaaga run ahaantii wiilku waxuu ahaa nin isaga laftiisu alle subxaana wa tacaala caqli iyo maal uu ku manaystay hadalkii hooyadii waa uu duxay oo si dhaba ayuu dareemay qalbi ahaan iyo maskax ahaanba wiilkii markasta wuxuu isku dayi jiray balse hadalkii ay hooyadii tiri inuu markasta xalkeedii raadiyo amba uu raadiyo jawaabtii ay hooyadii siisay wiilkii wuxuu magaaladii jooga muddaba uu hooyadii la noolaa waxa dhacday wiilkii maalin maalmaha ka mid a inuu ka socdaalo magaaladii isagoo u socdaalay magaalo kale kadib wuxuu tegey magaaladii kale waxaanu sii qaatay sahay uu magaalada ku joogo waxoogaa muddo ah wiilkii waxa uu tegey magaaladii kale isagoo joogay magaaladii kale wakhti haystiina waxuu cuno amba waxuu ku noolaado muddada kadib waxa dhacday maalin maalmaha ka mid a wiilkii oo magaaladii kale jooga ayaa waxa uu arkay qoys ay ku nool yihiin hablo aad u qurxoon kadib waxa uu yimi odaygii xaafadda ku noolaa ee soo qorsaday hablahan quruxda badan leh amba qoyskii ay ku noolaayeen kadib waxa dhacday wiilkii ayaa weydiistay odaygii reerka inuu siiyo shaqo amba wuxuu ka shaqaysto isagoo uga sheekeeyey inuu magaalada ku cusubiyey isla markaana ka yimi dhul kale odaygii xaafadda oo ahaa mid markasta soo dhoweeya martida soorana si fiican noo soo dhoweeya ayaa wiilkii ugu jawaabay
wiilkaygiioo wax shaqaa hadda ma hayo, laakiin raalli ma ka tahay inaad ka shaqayso guriga? wiilkii waa u aqbalay, markasta isagoo isku dayayey hadalkii ay hooyadii tidhi bal inuu meel uun ka soo baadho amba soo ogaado, ee ahaa hooye waa uu jiraa qof beddeli kara amba kuu buuxin kara booska hooyanimo, laakiin qofkii helaa ayaa nasiib leh. wiilkii gurigii ayuu sidii uga shaqaynayey muddo. wiilku waxuu ka shaqeeyay gurigaba. wax dhacday maalin maalmaha ka mid a ayuu la kulmay arrin aad iyo aad u cajiib.